فائدة اللبات صون كاللوجي لأنه واجبية حكمة أهان كجرتا وأن هذه مهمة. فائدة اللبات صونكو وحو عديد قليا ودوينك أو شيطانك النفط هذا كدحمره ورسولك وحو صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم إنسان كوحو كدحمره meelaha dhiigu raaco ayuu shaytaankuna maraa. marka xadiiskani qisoo lahaayo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam isagoo masaajidka ku itikaafsan ayaa wuxuu markaa waxa soo booqatay haweenaydiisii Safiya bint Huyay ayaa soo booqatay. kadib markaa wuxuu damcay inuu sii dhaweeyo ama yaanu itikaafsanaanin be isagoo cibaado ku jira ayuu dhabeeyay ama maartay haweenaydiisii goor habeena wadada la maray hada saas ku toosaya. dabadeeto laba saxaabi oo garanaya inuu rasuulkiina yahay haweenaydiisina ay tahay garanaya ayaa xagga dambe ka soo gaadhay. waxay is yiraahdeen markaa rasuulka iyo xaaskiisa si aynaan u mashquulinin oo aynaan sheekadooda ugu dhaxgoynin hayn hore u yar dhaafno iyaguna sidee doonaan ha soo socdaan wax ka soo sheekaystaan. marka cagtay hoosta ka qaadeen markuu arkay rasuulka iyagoo degdegaya oo dhaafaya ayuu ku yiri waa bal istijiya waa aayad socda innaha Safiya war gabadhani waa Safiya waa xaaskaygi Safiya bint Huyay buu ku yiri. markaasay ku yiraahdeen subhanallah ya rasuulallah inaan adiga ka shakino oo yaani cid kale inaan la socotaan kaaga shakino ilaahay baa xumaan ka nasahan arrintaasi waa xaasha wax dhici karta ma aha yiraahdeen. qaacidadana soo baxday markaa wuxuu ku yiri maya si aad noo siin ma waxaan ka baqay yiri inuu shaydaan qalbigiina wax ku tuuro oo danni iyo shakiba idin galo maxaa yeelay shaydaanku waa xadiiskana markaa ayaa meesha yimid. shaydaanku bani aadamka wuxuu ka dhaxmaraa halka dhiigu maro xididada dhiigu maraan ayuu isaguna maraa. marka wax xaalad culus weey. marka mar hadduu shaydaankiiba uu sida dhiigu ku dhex socdo shaydaankaas halis buu kugu hayaa oo waswaasinaya oo mar walba uu kugu dhex jiraa. sidaa darteed soonku wuxuu markaa cidhiidhi gelinayaa xididada dhiigga qaada ee uu shaydaan maro ayuu oodayaa. markaa waa isdal buu u yahay. waa faa'iidada labaad weey. dabadeed waxaad aamin ka noqonaysaa inuu ku waswaasiyo shaydaankii aamin baad ka ahaanaysaa oo maartay shahwadaadii taagnaydna soonkii baa jebinaya caradii buu kaa ilaalinaya. dabadeed shaydaan ma helaayo meel uu ka soo galo shaydaanku markaa ma helaayo yaani albaabadaas waxa ka xidhaya soonka ka xidhaya. sidoo kale marka lagu daro يعني أرتكو واتسونتيو ديجاجي ماليه أو مريه ويتعيفين وكو الباب ده سوي حرمان عرفت كلام ماشي كجرته استقل لفتر كيس على السلسلة دي أو بيشان استقل لفتر كيسو سلسلة الله هو ذا تشبيه وحرنيه هاي مركا وفائدة الله بعد وي كذا كوليسن يسون شيطانك ما دام استقل حرنيه هاي qofka muslimkii markaa hadda kadib wuxuu dareemayaa xiriirkii alle ayaad dareemaysaa waxaanad ka fogaanaysaa qurxintii uu shaydaan kuu qurxinayay macaasida uu kuu qurxinayay ayaad ka fogaanaysaa. dabadeed waxaad ku dadaali doontaa idamka ilaahay ramadaanta dabadeed si aad uga mid noqoto addoomaha ilaahay ee khaalisiinta ah kuwa cibaadada ilaahay u baraxtira ayaad ka mid noqonaysaa oo soonkii baa ku daweeyay oo ku rabeeyay oo albaabo farabadanna ka soo xidhay oo kolka hore tashwiish baa kugu furnaa. shaydaankii baa la silsiladeeyay meelihii uu marayayna soonkii baa ooday
adigii markaa waxaad noqotay qof jaanis la siiyey oo xiriirkii Allah kuu bilaabmay dabadeedna waxaad ka mid noqonaysaa addoomaha ilaahay ee mukhlisiinta ah ee ilaahay cibaadada u barax tira ayaad ka mid noqonaysaa bacda ramadaanta oo kale markaa dawaad helaysaa markaa waayo shaydaan wuu dhaartay oo ilaahay ballan buu la galay oo wuxuu yidhi فبعزتك إله وحن كل عتي أجود هذا لأغوينهم وانلمن أو وانلمن أجمعين الدمان وانلمن إلا عبادك منهم المخلصين الضوامها غير الجاكعة العبادة أنت الدبيين كو برح ترى كوا أمبانا وحبك الترينين أنت كلا أوردن تبان كبر الدعاء وضع مرسنيا وبلنك أو قاضي marka ninka dadaalaya ee adiga kugu maqan ayuu soonku dawo kaaga yahay waa xikmadda labaad ee loo waajibiyay